سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. ولا تجد نواصينا بيدك ماض بنا حكمك. نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في أهل الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشفا لكربنا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وبركة في أرزاقنا. يا الله يا الله يا الله نسألك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة نتوجه إليك يا رب إنا نسألك نتوجه إليك يا مالك المؤمنين. اللهم فينا ضعفاء فينا نساء وعرايا فينا أيتام فينا أولاد فينا أطفال فينا حفاظ القرآن فينا معلمين ومتعلمين فينا شيوخ الركع وفينا صبيان الرضع وفينا بهائم الرتع. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نسالك مما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما سالك منه عبدك محمد وعبادك الصالحون وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا رالي هذا واد ابنه والله. رالي هذا ما انت قالوا لي.
يمد قرحة تاجن إلهي إني بريانو يمد أرتوحان لا يهي كل جان إلهي دعاء هنجا أقبله سيدو الشيخ النوشاقي waxa ugu muhiimsan oo maanta sameyn karna waxay tahay inaan Ilaahay barino waxaan rabaa inaan idin sheego sida kaliya oo dib uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dibka annaga isu keen mas'uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga cadeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas'uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nala ka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano waxaan naga go'an oo ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnana aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn waqtigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhamaatay waqtigii la isku xadgudbaayo way dhamaatay waqtigii albaabada la idinka xiran jiray way dhamaatay waqtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxaan idin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeynayaa in bilaaw cusub uu bilowdo waxaan idin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fariisataan inaan idin la fariisan marka aad faraxdaan inaan idin la faraxno marka aad murugootaan inaan idin la murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahay inaan idin dhageysano albaabadana aan idin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibku naga saari doona hadii ilaahay yiraahdo ilaahay qalbigeena isu soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeena ha sugo ilaahay cadaaladda ha waafajiyo ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaq nagu dub ilaahay rabbi isku soo no dhaweey ilaahay rabbi oo qabyaaladana baabiisa naga qabo ilaahay rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayno noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax iska raadino ilaahay shacabka Soomaaliyeed isku soo dhaweey ilaahay sharafteena noo soo celi ilaahay karaamadeena noo soo celi ilaahay culimadeena barakay ilaahay dhalinyaradeena barakay ilaahay dumarkeena barakay ilaahay madaxdeena anigu aan ugu horeeyo xaq waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay ha idin barakay kulli السلام عليكم oo dalkan ku soo laalaabtay abaar waa abaartii ama dhibaatadii saddexaad 92 iyo 2011 iyo hadda waa 3 jeer mid walba ka mid ah waxa ka horeeyay dhibaatooyin aan annagu gacmaheena ku kasbanay dhibaatadaas oo ah jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyay dhiigii ha loo daadiye waxa la waayay dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeenu salawaatullaahi wa salaamu calayhina wuxuu yiri la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala aydi adh-dhalim aw la yusallit Allahu 'alaykum 'adhaban thumma tad'uuna fala yustajab waxaad faraysaan wanaaga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimka ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaato idin camimta alla idinku soo dejinaya ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwal a'izaa waxaad u jeedaan balad iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaa aad u badan yahay waxa dhacayso dalka madaxu leeyahay haddana insha Allah dawlad cusub ayaa noo soo socto dawlado badan waa soo marnay waxa suurtagal ah dadkii mas'uuliyiintaas ahaa qaarkoodii wasiiriin ha noqdaano ama xildhibaan ha noqdaano in xaqul naaski aad loogu tagrifalay oo xoolihii meeshii laga rabay in la marsiyo aan la marsinin mas'uuliyadii meeshii la rabay in laga qaado aynan u qaadin
وأين نفهم المسؤولية نيتهاي تكليف قبل أن تكون تشريف وحال ليه ذاتك مسؤولين هرأها أو ولي بلغيا وهذا إليه ربان مر لماط أي مسؤول نقضان إلهي هكبقان ها حساب تمانو محا كهرية هكا حساب تمانو حديث وحاجرة أو صحيحين كأقرايو أو نبي قال لي هاي أمدي سلخ خطابايو أسو خطبه تاغن أو وحويني لا ألفين أحدكم قفكين أنا نهلين قيامة مركي لقارو وفي رواية لا ألقين أحدكم قفكين أنا نكل من قيامة مركي لقارو على رقبته بعير له فخاء أو رخاء نبرك كسارين هاي نفقيل أو قيلنا هايو أو دومبدي قرعيسو أو نبرك كسارين أو كوبضو يعني لكل من ساس أوكل وشات تيعر رئة أو نبرك كوبضو هاي إيمان نوجي ولا أيضا سماء واحدة قال لا أو أن هذلين أو العقد ذهب يو فضة يو دولار يو العقد نوع كستها هاته أسيقهم بارسن يعني إيمان نوجي أو لها يوم مركز يا رسول الله اشفع لي أغثني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الظلم وكشف الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha Soomaaliyeed ee isugu yimid meeshan alla bariga salaatul istisqaha oo roob doonta ah inaynu ilaahay u toobad keenno waa arrin aad u fiican oo sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waad ogtihiin maanta waddankeena dhibaatada ka jirta oo waddan magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed oo fayow maanta uuna jirin wax kalena ma aha ilaahay roob inooma waayin baad iyo biyatoona inooma waayin waa nooc ciqaab ah waa dambi inagu aynu gallay ilaahay baa quraanka kule wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum ويعفو عن كثير waxa dunuubta waxa dhibaato oo musiibo oo abaar oo